arrimood oo aan isleeyahay maanta waa saddexda arrimood ugu mudan inaynu bal dul istaagno inuu falanqayno ayaan ka warrami doonaa. Kow, waxaan ka warrami doonaa xoga cusub oo ka soo baxay arrimaha doorashooyinka, shirar beesha caalamka iyo maamulada ee dalka dhex maray maxaa ka soo baxay ayaan qodobka ugu horreeya aan ka hadli doonaa. waxaan kaloo ka hadli doonaa madashii heritage ay qabatay lagu qabtay dalkaasi Djibouti, magaalada caasimadda ee Djibouti, waxyaalihii ka soo baxay differencega madasha iyo madalihii hore ee qaban jireen nimankaasi u dhaxeeya macluumaadka aynu ka fahanay meesha lagu soo gudbiyana qaybahooda ugu muhiimsan baan dul istaagi doonaa. waxaan kaloo finally ka hadli doonaa diyaaradii dhawaan la keenay ee TB2 ahayd oo shaqo bilowday isla markaasna ay soo gaareen meelo ay ka howlgashay iyo shacabkii dhulka Soomaaliya deganaa qaybo ka mid ah oo soo gudbiyey aragti iyo diyaaradda ku saabsan iyo waxa ay qabanayso. ayadaasna falanqayn iyo macluumaad baan ka hayaa qaybta dambe idan droneska. saddex arrimood ayaan ka hadli doonaa. soo dhawaada waa ninka odayga ahaa, saakayto shaahayga iyo kafeeyga miisku ii saaran yahay, saaka meel looma kala socdo. anigu hadda inkastoo duuradii ii tahay idinku kulley fiidkii bay idin tahay baan u malaynaya dadka Soomaaliya jooga. marka soo dhawaada, intaaba uu muuqaalka nagu daaran yahay yaad share garayn kartaan, share gareeya oo dad kale aad la wadaagi kartaan. haddaan ku bilaabo marka arrinta doorashooyinka dalka, waxaa runtii xalay dhacay markii anagu xaggayga xalay ka ahayd, laakiin idinku waxaa laga yaabaa inay waqti kale idin ahayd, shirar maxaa la yidhahdaa u dhexeeya maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo khaasatan dalka Maraykanka iyo dowladda Maraykanka iyo madax ka socotay midowga reer Yurub ayaa kulmay oo markaasi ku kulmay waxa loo yaqaano Zoomka aaladda la yiraahdo ama computerka la iska dhex arko. waxay soo jeediyeen nimanka reer galbeedka ah gebi ahaantoodba in doorashada la wado oo aan markaa doorashada loo joojinin waxa loo yaqaano dhaliisha ay doorashadu leedahay ama laga bixinayo. doorashadu dhaliil ma leedaha iyo ma laga bixinaya maaha waxaynu ka doodayno. marka waxay yidhaahdeen doorashada ha la wado yaan marnaba doorashada la joojinin, dhaliisheeda iyo waxeeda ayadoo le doorashada horey ha loo socodsiiya ayay yidhaahdeen. waxay sheegeen in doorashooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya ee ka dhacay ay ahaayeen gebi ahaantoodba doorashooyin dhaliil iyo cabasho laga soo saarayay isla markaasna la wadayay. waxay isla garteen maamulada iyo nimanka reer galbeedka ah in aysan jiri karinin doorasho aan wax dhaliila lahayn. doorasho walbana hadba cidda ka dhacda gaariga ama waxa ay rabto weydo ay fududahay inay markaa wax dhaliisho, dhaliilna aysan ahayn wax doorasho loo joojiyo. tusaale yar daan dhex geliyo dalkan Maraykanka, doorashada ugu dambeysay ee ka dhacday madaxweynihii dalkaasi Maraykanka ee hore Donald Trump ayaa resultigii diiday. muddo badan baa la is haystay. aqalkii Maraykanka ayaa waxaa u dhacay niman opposition ah ilaa iyo muddo kadib ayaa doorashadii markaa ayaa lagu kala wareegay kursigii. haddii marka dalka adduunka ugu awooda badan ay sidaa ka dhacayso, maxaad moodaa dalal kayagoo kale ay kuwa la mid ah sida ay doorashadoodu u noqon karto marka doorasho aan muran lahayn. waxay marka arrintan tusaysaa marka insi doorasho caalamkan maanta ka dhacaysa oo aan lagu kala aragti duwanayn inaysan imaan doonin wixii raba la sameeyo. meel walba markaad fiiriso doorashada waa la isku haystaa. dal walba la isku haystaa. Kenya la isku haystaa, Ethiopia la isku haystaa, Europe la isku haystaa, ilaa iyo Jarmal baa doorashada isku haysta. cid walba doorashada isku haysta. marka arrintaa waa arrin nature ah oo xagga markii laga hadlayo doorashooyinka ma jirto doorasho aan muran lahayn marka doorashada la socodsiiyo. waxay kaloo xoguhu intaa iigu dareen oo la ii sheegay inay nimanka reer galbeedka ah lacago la filayay inay bixiyaan ayaama dhowta xataa mar ay diideen ay carabaabeen in haddii doorashada la socodsiiyo ay bixin doonaan ama ay siin doonaan maamulada, laakiin doorashada la socodsiiyo taasina la filayo marka in nimanka xogaa yaro shaaxo ayaanta dhanba looga dheganaa oo dowladdu ay fure iyo qufil ku xirtay in la heli doono haddii ay doorashada marka ay socodsiiyaan. halkaa marka waxaa kusoo idlaaday riyadii maalmeedka ahayd nimanka mucaaradka la baxay isku sheegayeen ahayd doorashada la joojiyo, doorashada ha lagu laabto iyo arrimaha la midka ah. arrintaa halkaasay kusoo idlaata. waxaa kale oo ay maamuladu iyo isla garteen nimankan gaalada ah dhaqaalaha ku bixiya dalka in arrimaha kuraasta ee la celcelinaya ee weliba guddiyadu ay bilaabeen inay caqabad ku noqon doonto arrimahan, balse ooda laga qaado aan la hor istaagin la socodsiiyo oo kuraastii lagu dheganaa markaa la sii daayo. waxaa markii marka ooda laga qaaday oo la sii daayo kursigaasi faray. waxaa kaloo la filayaa kuwa kale lagu dhegan yahay decisionka laga qaadan doono waa arrin aan ilaa hadda la ogeyn. qayb baa weli lagu dhegan yahay sidii kursigii Jawaari uu ka cararay uu yidhi ha la ii xiro, la diiday in loo xiro. marka
kursigaasna waxa laga yeeli doono ma xaqiijin karo laakiin ma jiri doonto kuraas dambe oo lagu dhago kursigii hadda soo baxay ka dambeeya wuu soconaya kursi dambe oo loo joojin doono ama lagu laaban doono ama loo ogolaan doono in gudiyada khaasatan kuwa khilaafaadka ay ku dhagaan ma jiri doono arrintaa cabasho weyn bay maamuladu ka keeneen inaysan arrintaa mar dambe aan lagu laaban marka arrintaasna in la socodsiiyo ayay isla garteen isla meel dhigeen intaasaan oga baxaya arrimaha doorashada kuma dheeraanayo dalka doorasho allah ka rido xalka keliya soomaaliya ay maanta leedahay waa doorasho ma aha isqabsi taa waa halka ciddii soo baxaysaa soo baxdo waxaa jira dad dhahaya doorasho lasii og yahay cidda soo baxaysa doorasho walba oo caalamka ka dhacdaa cid baa faafrida cid baan faafrid ahayn game walba oo dhacayo cayaareed oo head to head ah dad baa faafrida dad baan faafrid ahayn haddana dhinaca kale way u dhici kartaa mar walba competition caalamkan ka dhaca dadka cayaaraya equal chance ma haystaan waxaan arkayay dad xagga probabilityga si qaldan u samaynaya ma jirto tartan dhaca oo dadka dheelaya ay equal chance ay haystaan ama fursad isleeg ay haystaan hadda haddii maanta arsenal iyo liverpool ay cayaarayaan waxaynu odhanaynaa waa 50-50 ma 50-50 ma aha faktarada ka dambeeya maxay tahay adan ku daaya haddii caawa marka ay soomaaliya iyo cid kale isdagaalayaan yaa badinaya waxaayoo dhan meel walba oo competition ka jira dadka competitionku ka dhexeeya marna faafrid ma aha doorashadii ka horreysay xasan sheekh maxamuud dadkii la tartamaya asaga yaa faafrid aha xasan baa aha miyuu guulaysta may muusan guulaysan tii ka horreysay sheekh shariif iyo dadkii la tartamayay isaga faafrid aha miyuu soo baxa may ma soo bixinin mararka qaarkood dadka faafridka way luus garayaan laakiin wax walba oo dhaca doorashada cid baa loo badinayaa inay soo laaban doonto that how it is waa iska caadi wey marka ma noqon doontaan islaahay wax dadka wax garanaya loo sheegi karo intaasaan oga baxay arrimaha doorashooyinka macadka heritage baan u galayaa macadkan heritage runtii taariikhdiisii hore waxay ahayd taariikh runtii aan qurxanayn ee madow bay ahayd markii la fiiriyo bilowgii macadkan markii la asaasayay heritage la yidhaahdo waxaa qayb ka ahaa ilaa iyo 4 ilaa iyo 5 shakhsi oo wariyaal waliba BBC da afka ingiriiska ku hadasha ay qayb ka ahaayeen ayaa qayb ka ahaa bilowgii macadkan taasaa marka waxay keentay in macadkan markii hore la asaasayay ay dadku ay u arkaan inuu yahay macad ay leeyihiin dad ajaanib ah oo reer galbeed ah oo weliba qayb ka ahaa dad lagu tuhumayey inay qaadanayaan oo aruurinayaan macluumaad been ah oo dalka lagu boobayo qoraallo badan baa laga soo saaray dad badan oo aqoon-yahano ayaa falanqeeyay ku laaban maayo laakiin sawirkii hore oo laga haystay sawirkaasuu ahaa waxaa ku xigay fikradihii iyo doodihii ay soo bandhigeen ma aysan ahayn doodo runtii dadka iyo dalka soomaaliyeed wanaagiisa ka turjumaya maysan ahayn waxay ahaayeen mid lid ku ah bay ahaayeen wax walba oo ay qorayaanna waxaa ku jirtay macluumaad badan oo beena ayaa ku jiray oppositionno badan bay la kulmeen walow 4 sano hadda ugu dambeeyey ay la kulmeen opposition aad u xoog badan oo aan isleeyahay 4 sano hadda ugu dambeeyey baraarug xoog leh baa jira dadka dhalinyarada ay qurbaha joogaa iyo dadka aqoon-yahamiinta ah iyo shacabkuba waxay ka mid yihiin dadka hadda sida weyn ay baraaruga uga muuqdo oo waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah oo heritage iyo kuwaas think tanka ah si weyn uga hor yimaaday marka sidaa bay horta markoodii hore ahaayeen hadda markii ugu dambeysay sanadkii hore madashii ay garowga ku qabteenna waxay ka dhigeen madal isugu keenay dadka jecel inay dowladda ama caayaan ama aflagaadeeyaan ama ay mucaaradka sheeganaya un baantal isugu keenay ayaa waxaa laga dhigay goob lagu caayo dowladnimada iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed shacabka lagu niyajibiye ayaa laga dhigay markii garow lagu qabtay qof alla qofkii farmaajo raba inuu caayo mikrofoonka loo dhiibayay farmaajo caay dowladda caay dalka caay ciidanka caay nise caay mugdi bay sii gashay sanadkii hore laakiin sanadkan baashii la qabtay isbeddel weyn ayaa ku yimaaday waxaan jeclahay inaan mar walbaba tilmaamo positiveka iyo negativekaba aysan ahayn dhinaca aan raba aan wax u dhigaynin sanadkan heritage isbeddel weyn bay la yimaadeen waxay heritage sanadkan ay keeneen dad shacabka soomaaliyeed wax u sheegi kara oo aynu doonayno inuu dhegaysano oo wax og bay keeneen tusaale oo kaleeto soomaalida kenya degan nin bay ka keeneen runtii walow asaguna uu ahaa nin waxyaala badan laga tirsanay laakiin haddana waa nin mateli kara dadkaasi oo noo sheegi kara ama aynu wax ka weydiin karno kenya faragelinta ay soomaaliya ku hayso why aadan barabdi cali waxbaan ka weydiin karnaa waa in wax nooga sheegi kara dhanka etoobiya cagjar baa laga keenay asaguna waa nin madaxweynihii maamulka somali state ah waxaynu weydiin karnaa marka influenciga ay inagu yeelan karaan
dagaalka Ethiopia iyo arrinta Abiy Ahmed laga tirsanayo iyo aragtida ay Soomaalidu Ethiopia cusub ay ka haysato waa nin aan wax ka weydiin karno dhanka dowladda Soomaaliya waxaa la keenay nin ka mid ah wasiirada ugu aqoonta badan xagga filadana ugu dhow la oran karayo wasiirada dowladda Soomaaliya ugu saameynta badan Jamaal baa la keenay so marka dadkii meesha la isugu keenay waxay ahaayeen dad top class ay ahaayeen weliba specifically saddexaas ayaan dul istaagayaa Djibouti dad kala weyn baa ayaga laga keenay wasiirro iyo xildhibaano laga keenay so marka dooddu marka waxay ahayd dood shantii Soomaaliyeed oo dhan ay ku dhan yihiin xataa dhankaas maamulkaas Somaliland rag baa laga keenay walow ay qaybta opposition ka ahaayeen mucaaradka ku ah maamulka ninka adiga marka waxay rabto ha ahaato marka waxaad arkaysaa marka in shantii Soomaaliyeed baa laga keenay dad matali kara oo wax la weydiin karo waxaan rabaa inaan dhowr qof aan ka taabto arrimahooda aadan bare ducaale iyo cagjar baan rabaa inaan xoogaa dul istaago maadaama Kenya iyo Ethiopia ay dowladnimada Soomaaliya ay influence ama saameyn ku leedahay waxyaalihii ay sheegeen maxaynu ka baranaa iyo maxay meesha ka soo baxay ayaan dul istaagi doonaa ka bacdina oo waan ka gudbi doonaa aadan bare ducaale runtii waxaa horey u dhacday shaabad fool xun oo Soomaali diidnimo ah oo shisheeye jacayl baa ku dhacday laakiin waxaa hadda ka muuqata isbedel baasna ka muuqda jeclaan lahaa inuu isbedelka ku socdo nin walbo Soomaaliya walaalkeena oo shalay inaga tagay inuu maanta inoo soo laabta soo dhaweyn mudan yahay aadan bare ducaale waxaa ku dhacay in asagoo Kenyanimada ku faanaya oo dowladda Kenya u shaqeynaya oo dowladda Soomaaliya dhaliilaya oo raalli ka ah badda Soomaaliya ee Kenya qaadato in isla Kenyaankii uu la socday aadan bare ducaale ay ka shakiyaan Kenyanimadiisa oo la yiraahdo wuxuu haystaa Soomaaliya passport buu haystaa iyo dhalasho Soomaaliya uu haystaa waxaa ku dhacday in xilkii inta laga qaaday si bahdilan looga dhex bixiyay maxaa la yiraahdaa xisbiga talada haya madaxdoodii laga dhex saaray in dacaayad badan lagu furay asagoo weliba waxaa soo dakana dadkiisa iyo dadkiisa ka galaya ayaa ku dhacday aadan waxaa marka hadda ka muuqata inuu fahmay wixii aynu muddo badan ka sheekeynaynay oo rag asaga la jooga ay fahmeen oo ay ku jiraan professor Cabdiwahaab iyo ninka loo yaqaan Faarax Macalin iyo nimanka kale ee ka soo gala North Eastern ee badan ee fahamsan in Kenyanimadu ay tahay wax shakhsi gacantiisa ku jira ninka ku kooyada maanta madaxweynaha ka ah ayaa Kenyanimada ka qaadi kara waayo wad aragteen niman badan oo siyaasiyiin ah oo Kenyan ayaa laga qaaday dhalashooyinka sida dadkii aan Canada ka imaanayay magaciisi soo qora inkii Canada ka imaan jiray lawyer ka haya dhaarin jiray Raila Odinga rag badan baa laga qaaday shahaadadii Kenyanimada ahayd oo dalka laga caydiya maxaad moodaa marka nin Soomaaliya waxaad moodaa marka hadda inuu fahmay aadan bare ducaale in Kenyanimadu ay tahay waxa loo yaqaan wax nin gacantiisa ku jira balse Soomaalinimadu ay tahay wax loo dhasho in la difaacana ay qasab tahay aadan bare ducaale marka baraarug weyn ayaa ka muuqda waxaan arkayay 3 maalmood ka hor warbaahinta Kenya soo ka hadlaya TV Kenya kamid ah ayuu wuxuu si adag u sheegay arrin mudan in aadan lagu maxaa la yiraahdaa taageero la iskana daayo dhaliisha aadan la dhaliilayo maadaama uu isbedel ku yimaaday wakaas ahaa miguna ninka magaciisa raadinayo saddex arrimood buu sheegay aadan inuusan marna ka tanaasuleynin kow wuxuu yiri diinta islaamka cidna ogama tanaasulayo ama Kenyan ahaada ama Kikuyu ahaada labo deegaanada Soomaalida ee aan matalo sida Isli iyo meelaha la midka ah inaan codkooda ku hadla marna kama tanaasulayo saddex Soomaalinimadayda kama tanaasulayo arrinta marka waxay aadan tusaysaa inuu haysto meel back up dad u la galo waa dadka Kenyanka ay Kenya degan ogaadaan haddii Soomaaliya la burburiyaa Kenyanimada aad ku joogtaan waxay noqonaysaa mid lagu gumaysto laakiin haddii Soomaaliya ay dhisan tahay xoog leedahay dad li kaga baqaad haysataan hadda Kenya ku wareertaan bari Soomaaliya aadi kartaan reebel baata nin kastoo Kenya jooga ama waa daarood ama waa dir ama waa digri mirif ama waa kan ama waa ka waa nin Soomaaliyeed uu dalkiisu aadi kara ama Ethiopia joog ama Kenya joog haddii dalka Soomaaliya dhisan yahay dalka Soomaaliyeed bad ka mid tahay citizen baata laakiin waxaad ogaataa haddii dalka in la burburiyo aad ogaato midda Kenya aad ku joogtaan macna samayn mayso midda Ethiopia aad ku joogtaan macna samayn mayso taas marka waa mid weyn aadan marka arinta runtii baarug baa ka muuqda asaga iyo nimanka aqoon yahaminta ee Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee Kenya deganba inay arinta ku baraarugaan oo ogaadaan in Soomaalinimada iyo dalka Soomaaliya la difaaca inay ka horeyso Kenyanimadan temporary ah ee dadka gacantooda ku jirta waa muhiim aragtida aadan ee ku aadanayd madasha u laabanaya aadan madashii aragti positive oo xaqiiqo ku salaysan ayuu aadan meesha ka soo gudbiyay dhowr arrimood ayuu aadan kala saaray oo muhiim ah in dadku ay kala saaraan kow wuxuu ifiyay aadan uu yiri dal walba markay doorasho ka jirto asagoo Soomaaliya doorashada ka hadlaya isqabqabsi uu jiraa
wuxuu yiri Kenya oo doorashada ay next year waliba ay August meelaha ay tahay hadda haddii aad tagto xad muddo doorashada ay bir dhacaysa waa run waa la is haystaa waxbaa la kala sheegayaa waa la isku dhegay waxaan waa nature xagga doorashada ama waa dabeecad ay leedahay doorashadu ayuu aadan fiya marka isqabsiga iyo eedaynta iyo arrimaha doorashada iyo musuqaad maasuqa Soomaaliya lagu sheegay iyo nimankan mucaarad waxaayo dhan wuxuu yiri waa arrimo doorasho dabeecadeeda meel walba way ka jirtaa wuxuu kale aadan uu bidhaamiyay uu ku mahadsan yahay isbedelka hay'adaha dawliga ah dalka ku yimaaday khaasatan financial institutionada ayuu ka hadlayay ayuu ka hadla sida ay public u tahay haddii aad doonaysid inaad daawato informationka iyo macluumaadka dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya ku saabsan sida ay public u tahay dadka ay u daawan karaan transparency u tahay loo control musuqmaasuqa looga ilaaliyay wuxuu ku mataalay in Kenya iyo iyagu maanta isku qaabay u sameynayaan waxa loo yaqaano ama loo maareynayo xagga dhaqaalaha wuxuu kaloo aadan uu asna uu runtii uu ka hadlay oo uu bidhaamiyay isbedelka uu ku yimaaday dib u dhiska ciidanka iyo sida in ciidanka Soomaaliya loo dhisaa ay muhiim u tahay iyo amniga isbedelay ee dalka intii hore amniga dalku sidoo ahaa khaasatan caasimadda isbedelka ku yimaadeen aadan uu ka hadla saddexaas qodob ayuu aadan marka arrimahaasi uu kaga hadlay dhanka cagjar baan aadaya marka cagjar asagu runtii si weyn ayuu wuxuu u qodqoday arrimo dadka inta badan aysan runtii aysan arkinin ama aan shacabka loo bidhaaminin waxyaalo badan buu Mustafa cagjar iraahday ayuu asaguna bidhaamiyay wuxuu bidhaamiyay sida warbaahinta reer galbeedku ay dadka Soomaaliyeed ay u mislid garanayso ama ay u marna habaabinayso isla markaasna loo raacayo wuxuu kaloo ka hadlay waxa ka socda dagaalka Ethiopia ka socda waxa uu salka ku hayo iyo sidaan u maleynayno inay kala duwan yihiin daweynoo bidhaamiyay wuxuu kaloo ka hadlay isbedelka ku yimid ciidanka liu booliska oo ayaantii hortay borderka kasoo gudbaan dadka layn jiray laakiin hadda waxaa dhan la joojiyay maadaama ay maxaa la yidhahdaa Somali state uu ka dhashay maamul ay Soomaalidu leedahay oo talada Soomaalida ee gacanteeda ku jira oo aan la doonaynin in shacabka Soomaaliyeed ee borderka degan Soomaaliya aan la laynin wuxuu kaloo ka hadlay waxa ay dadka Soomaalida ah ee Abiy Ahmed diidan ay ku dhisayaan qadiyadooda iyo aragtidoodana wuu ka hadla saddexaas arrimood marka ayaan rabaa inaan dhowr meelood oga laabto waxyaalaha markay warbaahinta ay inoo sheegto reer galbeedka ee ummadda marna habaabinaya waxaa ka mid ah ayuu ku yiri warbixintiisii tusaale oo kale Ethiopia waxay ahayd dawlad xasiloon bay ahayd markii ay TPLF gacanta ay ku haysay ayaa dadka loo sheegay buu qof walba uu sheegay buu yiri laakiin waa been buu yiri wuxuu ku laabtay marka taariikhdii TPLF ay ku lahayd Ethiopia ayuu ku laabtay wuxuu yiri TPLF waxay Ethiopia qabsatay 1991kii 1994 waxaa bilowday buu yiri dagaalkii ONLF iyo Amxaarada iyo jabhadii baa bilowday buu waxaa meesha ka dhacay buu yiri xasuuqii ugu weynaa ee taariikhda Ethiopia ka dhacay ayaa ka dhacay ayuu yiri waliba khaasatan deegaamada Oromada ayuu si weyn u tilmaamay wuxuu yiri ayadoo arrintii wali aysan dhamaanin ayaa 1998kii waxaa qarxay buu yiri dagaalkii Ethiopia Eritrea malaayiin qof baa ku dhimatay buu yiri boqolaal kun oo qof ayaa ku dhimatay buu yiri arrintii ayadoo laga bixin 2001 haddana TPLF gudaheedii ayaa dagaal dhex galay buu yiri intaas qof bay xiran ayagii baa isqabtay ayagii baa kala shakiyay tafaaruq iyo balaayo dalka geliyeen 2005tii arday sababo gudaheeda ayaa boqolaal arday lagu laayay iyadoo doorashada loo taagan yahay 2006dii Ethiopia ayaa Soomaaliya gashay ugu yaraan area xamar ayaa 7,000 oo qof oo shacab masaakiin lagu xasuuqay wuxuu yiri marka goorta ay TPLF Ethiopia ka dhigtay meel xasiloon iyo goorta ay TPLF lugaha dagaal kala baxday waa goorma maalinkii ay dalka qabsan ilaa iyo maanta ito marba qolo cusub ayay ku marnaayeen marba xasuuq bay geysanayeen marba dad bay leenayeen isweydiiya waxa ay reer galbeedku iska leeyihiin iska qaadanine goorma ayay Ethiopia xasiloon ay noqotay goormay TPLF dagaal ka baxda isweydiiyo haddaad iska qaadanaysaa marka haddaad consumers noqonaysaan buu yiri wixii la sheegay baad ka aad qaadanaysaan idinka idin tahlaa laakiin Ethiopia isbedelka hadda ka jira hore uga muusan dhicin waxyaalihi uu tilmaamay waxaa ka mid ah wuxuu yiri goorma ayaad aragteen buu yiri dawladda Ethiopia ka jirta oo dalalka dariska xirmaysa oo aan faragelin buu TPLF oo kuwii Eritrea ku duulay faraha hadda laga qaaday waa dawlad daris ay nahay Soomaaliya wataasa waa xasiloon tahay faraha ayaan ka qaadnay madax galno goormay Ethiopia hatta shacabkii Soomaaliyeed ee borderka deganaa cid walba ayaa TPLF ee boobay saleenaysa marka ninka arrin badan burutii ayuu bidhaamiyay
wuxuuna yiri wixii soddonkii sano oo lasoo dhaafay ay dadka Soomaaliyeed ka doonayeen Ethiopia in laga helo oo ahayd inay inoo xushmayso in dal madax bannaan oo is xushmayno ayaa hadda la helay welina waa la qaylinayaa marka waxyaalihii uu tilmaamay wuxuu yiri dadka Soomaalida ah Abiy Ahmed diidan qaabkay wax ku dhisaan buu yiri waa malo iyo inay fishaan inuu Abiy wax xun soo wado laakiin wax hadda lagu sameeyo ma aha wuxuu yiri maxaaladu waxay tirsanayaan lagu sameeyo Tigreeguna waxay tirsanayaan lagu sameeyo laakiin Soomaalidu waxa ma tirsanayaan laakiin waxay isleeyihiin mustaqbalka ama waxa dhacaan waxyaalaha uu tilmaamay waxa ka mid ah wuxuu dheem yiri wuxuu doonayaa Abiy Ahmed inuu Ethiopia ka dhigo dawlad center ah oo federaalka u burburiyo soo federaalka burburiyo waxa anaga inooga shuqul maxay tahay waxa dadkaas oo dhan aysan qabinin anaga inooga xiran in federaalka burburiyo oo laga dhigo central government why do we care that we don't care marka maxaaradu awood siinaya iyo saanu samayn doonaa iyo kanu soo wadaa iyo Soomaalida oo dhan waxooda dhan waa qiyaas bay wuxuu ay ku diidayaan Abiy laakiin Somali state dhibaato kuma hayo Somali government dhibaato kuma hayo dadka Soomaalida ninka dhibaato kuma hayo cidda uu la dagaalayna anaga ma aha waxna ugu ma socdaan marka ninka runtii waxyaalo badan buu inooga bidaamiyay isbedelka new police-kana iyo xuduudda shacabka degan ee laga daayay qaxa iyo burburka lagu wadayna si weyn ayuu u bidaamiyay inaysan jirin mar dambe aysan jirin finally arana ku soo koobo diyaaradii droniska ahaa intaasaan oga baxayaa qodbadaha wasiir Jamaal baa ka hadlay laakiin wasiir Jamaal arrimihii uu sheegay kulligoodba in inagu cusub maysan ahayn waayo dawladda Soomaaliya xogaheedu inta badan waxaynu ognahay waxa la soconay ay ahayd hal arrin baan ka qaadanayaa Jamaal inta aan arrinta droniska aan u gudbinin Jamaal wuxuu yiri Soomaaliya 4 sano inuu dawladda hadda anagu aynu gacanta ku hayno isbedel weyn baa ku jira ma ahan hadal iyo buraanbur ma aha cidii doonaysa isbedelkaasi numbers and figures baan keenayna isbedel number baan keenayna mid dhaqaale iyo mid amni iyo mid walba cidii marka inoo keenta inaysan isbedel jirinin ha inoo keento miiska ha inoo saarto tusaale oo kale haddii dhaqaalaha dawladdan markii hore uu tusaale oo kale uu 10 million ahaa hadda ka soo qaado kale 40 million bay ayanu haysanaa oo kale marka waa number la arki karo oo aan muran u baahnayn arrimaha amniga haddii ayaantii horeeto ay dhici jireen qaraxyo tusaale oo kale isku celcelis bishii haddii ay 4 qarax dhici jireen oo kale xamar oo kale hadda waxa laga yaabaa in labadii bilood ay xamar dhacdo ama bishii ay xamar dhacdo soo isbedel baa ku jira number markaysa soo marka wuxuu yiri wax walba oo aynu sheegayno inaynu samaynay mid amni iyo mid dhaqaale iyo mid ciidan iyo mid walbaba waxaynu miiska soo saaraynaa isbedel la tirin karo oo number ah oo aan cidna ka bensheegi karin 2+2 cidda ka bensheegi karta oo may marka mid numbers aynu haynaa buu yiri marka isbedel weyn ayaynu haynaa buu yiri agjarna wuu ku raacay asna wuxuu yiri waa sax isbedel baa ka jira weyn Soomaaliya aadan baradu caalana wuu ku raacay isbedel baa ka jira ayuu yiri iyo wasiirkii soo marka shantii Soomaaliya ee meesha joogtay afar ka mid ah way isku raaceen marka in Soomaaliya dawladda hadda ka jirta maxamed farmaajo madaxweynaha uu ka yahay inay isbedel weyn ay la timaaday ayay isku raaceen markii laga reebo reer Somaliland maamulkan ah oo ayagu ka hadlayayba topic ka baxsan oo ah tusaale oo kale inay dhahaan aynu ka fikirno mandaqada faa'iidada ay Somaliland u leedahay Ethiopia iyo Soomaaliland iyo Puntland hawlo kale ka hadlay ayagu shakhsi ah laakiin topic miiska saarna kama aysan hadalin badan soo taantisan uga baxaya generally marka madashaas waxay ahayd madal positive ah ana jeclaan lahaa marka inay sidaa iyo si lamid ah ay heritage u sii wadaan oo laga daayo fadhi ku dirirnimada iyo dadka aan quality-ga lahayn ee ummadda inta la hor keeno waxa la weydiinayaa hore inoo daayeen ha laga daayo hore waxa inoo wareeriyeen marka dhalinyaradaasi wixii laga sheegay jira laga sheego laakiin sanadkaani way amaanan yihiin amaan bay leeyihiin shaqada ha la wadaan leena finally marka waxaan ka hadlay arrimaha droniska oo aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo live-kayga waxaynu ogeyn asbuuci hore aan si guda dheer oga hadlay waxa ay diyaaradda tahay waxa ay kaga duwan tahay diyaaradaha kale waxyaalaha lagu garto waxaa ila soo xiriiray shacab Soomaaliyeed oo kala duwan oo khaasatan gobolada Jubbooyinka jooga hadday geda tahay iyo hadday shabeellada jubbada hoose tahay iyo hadday jubbada dhexe tahayba waxaa la ii soo sheegayaa xogo aad moodid inay similar yihiin dad waxay arkeen waxay dadkaasi arkeen 4 maalmood ugu dambeysay diyaarado guuxooda la maqlayo balse aan la arkayn muuqeeda habeenkii diyaaradaha markii la gaaro nalkeeda lama arko intaanay dhulka usoo jirsan kartaa dhulka intaas u jirsanaysaa laakiin nalkeeda lama arko habeenkeeda lama bixiso laakiin ayadu way ku arkaysaa laakiin ugu markaysa waxay marka shacabku sheegeen in guux aysan hore u maqli jirinin
iyo waxaysan hore u aqoonin. qaar baa xataa sheegay in guryo ay degan yihiin madaxooda ay martay oo dabayshooda ay dabayshay ay diyaaradda ay martay oo xataa ay ka baqeen inay ku dhacdo. dad baa xataa soo sheegay oo xogaha soo gudbiyey. markii aan fiiriyey marka oo isku dardaray oona horeyna u akriyey dabeecadda ay diyaaradaha leedahay iyo featureska ay diyaaraddu leedahayba iyo waxa ay dadku soo sheegayaan, waxaa meesha marka ka soo baxday in diyaaradihii TB2da ahaa ee droneska ahaa ee turkiga laga keenay habeen dhaweytana nimankii rakiba qaybo ka mid ah ay muuqaalo sii daayeen oo la arkayey ayagoo xilli habeenna la kicinayo. waxaa meesha marka cad in diyaaradihii ay shaqo galeen marka oo aruurinayaan xogo ay dabcan dowladda soomaaliya u dirtay iyo sirdoonka nisaba oo xogo la aruurinayo. waxay diyaaradahaasi marka ay inoo keeni doonaan oo faa'iidada ugu horreysa hub waxaa weeye waxay shacabka reer gado iyo jubbooyinka oo dhanba ay ka raysan doonaan diyaarad dambe oo kenyaan ay leedahay oo inta soo orodo helicopter yar oo duqa inta soo orodo inay shacabka iyo xoolaha ummadda soomaaliyeed ay xasuuqdo oo cid la xisaabtanta aysan jirinin oo ay iska tagto. horta arrintaa way dhammaatay. waxaa kaloo laga raysan doonaa iyaduna in diyaarad aan haysanin ogolaansho hawada soomaaliya ah intay dalka soomaaliya soo gasho sidii midii hadda ka hor ay aadan bare ducaale kismaayo ku tageen ayadoo hawadu xiran tahay inta kismaayo ka degan waxay raba ka sameeyaan waxa ayoo dhan way dhammaan doonaan. diyaaradahan waxaa sidoo kale xataa loo isticmaali karaa in diyaaradaha lagu afduubo hadday soo gasho dalka diyaarad aan sharci ahayn oo inta lala hadla diido waa lagu garab qaban karaa isla markaasna waa lala hadli karaa dal ka bax waa lagu hogaamiyaa. afduub baa la yidhahdaa dalka waa looga saari karaa. hadday diido xataa waa la ridi karaa oo gantaalo lagu dhufan karaa inkastoo aan isleeyahay inta badan gantaalo la isuma dhufto laakiin waxaa la sameeyaa waa lala hadlaayo waa la qasbaa diyaaraddu inaysan meel la ku deginin. ma arkaysaan? waana la handadaa oo waa lala hadlaa oo waa idin ridaynaa baa la yidhahdaa. diyaaraduhuna haddii diyaarad ciidan ay ku dhegto ama kusoo dhawaato ama ay dusha ka fuushaan u dhawaato oo ay handado way yeelaan amarka waayo waa arrin qof xabad kugu qabtay oo ku yiri soco ama leexo ku yiri dabcan naftaada baad u baqaysaa. marka arrimahaay oo dhan dadku ay ka caawin doontaa shacabka jubbooyinka khaasatan reer gedana waxaan isleeyahay wixii maanta ka dambeeya way ka xiroobi doonaan xasuuq diyaarado cirar ka yimaada dowladda kenya. sidoo kaleto jubbooyinka iyo hiiraan oo ayaguna marar badan ay wax ka dhaceen oo kenyaanku ay ka sameeyaanna ayaguna sidoo kaleto weliba sida labada jubbo jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaguna way ka raysan doonaan in diyaarad dambe inta soo gashaa dalka iyo dadka iyo xoolaha ummadaba si aan laga fiirsan dhibaatanta ugu samaysa iska cararta. waxyaalaha oo dhan waa laga raysan doonaa. diyaaradda marka ay shacabku ay sheegayaan waa diyaaradda TB2 ah waana ayadaa sidaa u shaqaysa. diyaarad kale oo TB2 ah oo hadda soomaaliya gudaheeda ka operate garaysan ma jirto. intaa baan kusoo koobaya. dalka loo duceeyo, ciidanka hala taageero, dowladnimada hala taageero, doorashada ha laga shaqeeyo, hala iska daayo qiira jabaanka heel baa soo baxaye doorasho aysan aan lagu kala awood badan ma jirto. doorashadu waa dadban tahay. doorashadu ha laga shaqeeyo. haddii marka hadda ay taageereen beeshii caalamka iyo maraykankii haddee doorashadanu meeshii ugu dambeysay oo la qabsan karay halkaas ahayd halkaasna maanta laga fuqa. marka guul bay noqon doontaa insha allah. dalku doorashu aadi doonaa. waan rajeynaya marka in doorashada la boogsiiyo xildhibaanadu soo baxaan guddoonka baarlamaanka la doorto kabacdina madaxweynihii qaranka la doorto. wixii soo baxa waa la shaqaynaynaa. dalka ciddii difaacaysana waa la difaacaynaa. ciidanka qarankana ha la difaaco. guri gooni baan idinku ogahay intaynu mar labaad isaga soo laabanayno waxaan idinkaga tegay sidaa nabadgelyo.